بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا له قال سود وهذا سومالي وين مال والباجو دون كذا على ذا أكسو كنتي سود وهذا ولا له قال بليز قفك أن سبسكرايب إيسار سبسكرايب كإيسار ولا له قال لايك تسيدو كل هاي الضافنين ولا شيء نكو عاون إنسان إنك جم هاد على الناس ولا له قال عاد بايدين سلام يا مي والباجوكتان ما أنت أرنا واحد بدل أن ربنا كهدلو وما أنت كهدلنا ولا له قال ومهمة بإذن الله ومهمة ولا لهي Soomaalidana ku dhacda social media la soo dhigo laakiin arinta maanta idin weydiinaya ina iga soo jawaabtaan raba please iga soo jawaaba ina iga soo jawaabtaan raba sa u fahansantihiin waxa ka aaminsantihiin say idin la tahay waxa oo wixii markii maalin walba arinta ay dhacdo oo dadku ay ka hadlayaan oo social media laga hadlayo waa in la isweydiiyo sababtu maxay tahay inta badan Soomaalida waxa ilowna sababtu maxay tahay sabab baa jirta marka arinta idin hadlaa idinka idin weydiinaya anigu fikradayda waa idin sheegaya idinkana waa idin weydiinaa inaad waxaad ka fahansantihiin bilis aad idila soo wadaagtaan wax aad ka fahansantihiin sababtu waxa ay tahay arintan dhacda oo mar walba dhacda oo soo noqnoqota wax ugu wacan sababtu waxay tahay walaalahay waana wax muhiim u baahan in la isweydiiyo Soomaali in isweydiiso walaalahay qaali aad baa idin salaamaya soo dhawaada walaashay aad في عنتا الحمد لله إذن كان مول بوكس سجنتين وح إذن رجينا يا عافمات يا عمر الدار يا عباد السوق بإذن الله ولا له يقال هرت أنت أرنت أوجن ولا له يقال واحد يوسع اللسان هارا يوسع اللسان مر والواحد هذا هارا ساليلا هارها محاسمينا هاران لا يحي هارها ولا له يقال كرك كلمة wax korka uga jeeda kaliya ma aha gudaheed ku jiraan haaraha fahmaysiin walaalahay qaali barnaamijkii shalay aan soo dhigay ee kanaalkayga cuntada aan soo dhigay shaahi idin tusiyay shalayto aado oo fiirsada qofkii haara leh haaraha guduhu ka baabi'inaya walaalahay qaali korkana waxaad ka marin kartaa coconut oil aad waa fiican tahay habeenkii hadda ku seexato inta wajiga nadiifiso aloe vera gel ku fiican tahay habeenkii inta wajiga nadiifiso habeen ku seexato ani gabdhaha Soomaalidu aqaan wax degdeg ah rabtaan wax loo bari ku aragtaan rabtaa haaraha waqti dheer bay qaataan intay fayd noqonayaan intay tirtirmayaan walaalahay qaali marka wixii sabab badan ana haaraha keen sabab badan baa haaraha keen walaalahay qaali waa inaad caafimaadkaaga hoos ugu noqoto fiiriso caafimaadkaaga soo yahay gastric ma qabtaa caloosha ma ku taagan waxyaalo stress ma qabtaa hurda waxyaalo badan baa keena walaalahay qaali haaraha marka caafimaadkaaga fiiri noloshaada fiiri waxyaalo badan oo waxyaalaha u fiican idin soo galiya ka faa'iideysto waxa idin soo galiyo ani horaan ku sheegan israaqadeeda ilaahay waa haay anu ilaahay baan israaqa dadka ilaahay baa israaqa walaalahay qaali laakiin waxa idin soo galinayo wax runtii oo faa'iido idin leh waay marka ka faa'iideysto oo fiirsada walaalahay qaali oo isticmaala haaruhuna ogaagu waa gudaha marka waxa idinku adkeenaya gabar walba haaro dhibaato ay ku hayso barnaamijkii shalay aan kanaalkayga Fahima's Health Food ku qoran aad walaalahay qaali subscribe-ka ii saara like-ta ii saara fiiriye waxaan shalay soo galiyay haaro kaliya ma aha wajigaaga qorxoonayo ma aha ekaansho isku ekaanaysid kaliya ma aha calool taagan ma aha gastric ma aha dhabar xanuunayo ma aha infection ma aha waxaas dhan ka caawinayo walaalahay qaali marka gabdhaha qof walba haaro dhibaato ku qabo kanaalkayga cuntada Fahima's Health Food aada shaahi aan shalay soo galiyay fiirsada samaysta biidnillah waad ku leeyaanaysaan taas halkaas ugu baxaya walaalahay qaali bismillah walaalahay qaali maanta arintan ka hadlayno is very serious wallahi very serious waa waxa waaye dhaca Soomaalida ku dhaca meel walba ku dhaca ay joogan wadan kasta ay joogan ku dhaca walaalahay waana wax aad u xun I can't even imagine wallahi ma wax aan maskaxdayda ay soo galin karo ma aha cunugaaga meel kale ha seexdo qof ajnabi ah gurigiisa ha seexdo adigana meel kala soo waa waxaan xasb subhanallah
اللهم نجينا اللهم نجينا إلهي هنغهاي انت إسلامي الله كهاي إن إتا ووح أوحن وقف بني آدم هوية أما قف آباء ودريم كروا عرورتو ذو لغا قاط تاسان كهلينا ما تعرورتا لسك قاط والله قال ووح بدن ووح صومالي كدع وكو بدن صومالي waxaan rabaa inaa ii sheegtaan walaalahay qaali waa idiin sheegaa ani fikradayda sababta keenta in caruurta loo qaato walaalahay qaali waxaan rabaa inaa fahantaan oo isweydiisaan caruurta layskama qaato albaabkaaga inta lasoo garaaco kub la siinayo caruur lagama qaadanayo maskaxdayda ma galayso taas inta albaabkaaga lasoo garaaco caruur lagama qaadanayo haddii lagaa qaatana ee dhacdana oo qalad lagaaga qaatana lawyer baad qabsanaysaa waa dacwoonaysaa compensation iyo millions baa lagu siinaya marka wax macquula maaha stresska qofka hooyada iyo aabbaha saameynaya caruurtooda marka laga qaato wax maskaxi wax aan lasoo koobi karo ma aha marka wixii qalad lagaaga qaatay lawyer inaad qabsatid waayo oo aad u dacwootid u dagaalantid xaqaagana soo dhacsatid damagena lagu siiyo haddii qalad lagaaga qaatay haddaan qalad lagaaga qaadan oo ay wax jiraan taas waa maanta inaa isweydiisaan aan rabo mar walba waxaan ka hadalnaa hooyooyinka caruur baa la qaatay caruurta ma ka hadalnaa caruurta say yihiin caruurta sidii loogu talagalay in loola dhaqmo loo koriyo maskaxiyan kor ahaan waxbarasho ahaan diin ahaan caruurta ma heshaa nafaqa ahaan qurxin ahaan dhar ahaan wax walbay u baahan yihiin caruurta baahidooda way dhinacyo badan tahay caruurta wax kasta u baahan yihiin ma helaan maxaa sababay in caruurta lagaa qaato xaggee lagaa soo galay marka in ay fahantiisinaa rabaa waxbaa la qaatay marka la leeyahay albaabkaaga inta lasoo gaca sabab baa jirta caddayn baa loo hayaa marka caruurtaada la qaadanayo dowladda qaadanaysa waa inay caddaynayso marka caddaynta xaggee laga helay inay isweydiisaanaan rabaa caddaynta xaggee laga helay walaalahay qaali ayadoon caddayn lahayn caruurtaada lagama qaadayo taas waa garantii ma ka yeelayo qof ayadoon caddayn lahaynin baa caruur laga qaatay qofaan ka yeelayo ma jirto waa in marka caruurta geesinimadaas dowladdu yeelanayso oo gurigaaga la soo galaayo oo caruurtaada la qaadanayo dowladdu waa inay caddayn haysataa caddayn baa jirta waxbaa jira dhib baa jira marka waxaan ka hadlaynaa walaalahay dhibka waxa keeno daldaloolada la iska soo galo maxay tahay daldaloolada la iska soo galo walaalahay qaali shalaydan waxaa la ii sheegaya sheeko laba reer baa la ii sheegaya oo caruurta laga qaatay oo aniga waddankan jooga ila degan reerka koowaad waxaa iskuulkii hooyo iyo aabbahaba xashiish bay aabbaha hooyada ma ogi laakiin aabbaha waxaa la yidhi xashiish buu cabaaya guriga dhexdiisuu ku cabaaya caruurta agtooda ku cabaaya markasta xashiisha u shidnaa waxaa la yidhi xashiishku waa ogtihiin korkiinu kasoo uraayaa dharkiinuu kasoo uraayaa meel kastuu kasoo uraayaa iskuulkiiyaa caruurta la geynayaa caruurta korkoodii buugtoodii boorsadoodii waxoodii jaakadoodii xashiish baa kasoo uraya xashiishna wax la ogol yahay maaha waa wax khatara waay waa wax bini aadamka dhibaato u geysta oo maskaxiin u geysta oo ilmaha cudur ku rida oo neef ku rida waa loo sheegay waa loo yimid caruurta waxaasoo ka uraaya haddaad cabaysaan idinka dad waaweynaa tihiinaa la yiri banaanka ku cabo meelaha ku cabo caruurta ka ilaaliya ma uusan sameynin aabbihii caruurta sidiiba marka iskuulka tagaanba ee igu soo ureysay maxaa la dhahaa dharkooda marka dambe de waa caruurta waxaa caafimaadkooda la fiirinaya markaas dowladdu waxay haysataa reason ee caruurta ku qaataan markay qiiqan lagu buufinayo caruurta caafimaadkooda dhibaato u geysanaya marka caafimaad ahaantii baa lagaa soo galay caruurta yacni waxaad ku samaynaysaa neglect waxaad ku samaynaysaa danahoodii iyo wixii ay ahaa wanaagooda ahaa ma samaynaysid adaa iska fikiraya waa laga qaatay I understand that waan fahansanahay waan fahmayaa qiiqa aad ku buufinayso caruurta
cudurro ku ridaaya maskaxdu waxbarashadu ka curyaaminaya neefu ku ridaaya allergigu ku ridaaya marka adoo waalid waxaa samayso in caruurta lagaa qaato waajib waayo waan ku raacsanahay tan kaloo la ii sheegay waxay tahay balwad gabar balwad bay lahayd waxaas qaadka iyo waxaasay cunaysay waxay ka kici jirtay qaadka marka u fariisato waxay ka kici jirtay subaxii 2 saac markay kacdo bay seexan jirtay caruurta inta iskuulka geyn jirtay markaasay seexan jirtay hadda qof oo 2 saac seexday way ku adag tahay ama 4 saac subaxnimo seexday 2 saac ma seexan kartee iskuulka bay caruurta geynaysaa adu 4 saac seexday 9 saac soo ku kaca caruurta marka la soo kaxeynayo way ku dhib badan tahay caruurta ka dahda maalin waa la daayay labaa la daayay wiigaa la daayay wiig kalaa la daayay maalin walba caruurta iskuulka ayaga u dambeeya taas heartbroken waa wax cajaa'ib la waa caruurta in la qaatay in kale marka yaa qalad kale caruur baa la qaatay waa inaan isweydiino sababta caruuraha loo qaato iyo daldaloolada lagaa soo galaayo ilaan dowladdu ma waalee annagana loo soo garaaci lahaa na laga qaadan lahay dad ummadda dhan baa loo garaaci lahaa laga qaadan lahaa sabab baa jirta daldaloolaa jira hawshaadi baad gabtay marka caruurtaada lasoo haweysto waa laga qaata caruurta waana ku raacsanahay so sorry laakiin waan ku raacsanahay mas-uuliyad baa ku saaran hooyo markaa tahay mas-uuliyad baa ku saaran aabbo markaa tahay mas-uuliyad baa ku saaran waa ina iskuulkooda ka daahin waa inaa soo kaxayntooda ka daahin waa ay nadiif yihiin waa inuu sigaar iyo bahalka ilcabaya ka soo uraynin waa ina aan dhaawac korkooda ku oolin waa in ay maskaxiyan u diyaaru yihiin waa inay caloosho u buuxdaa waa inay nadiif yihiin waa inay mas-uuliyad baa ku saaran marka xagee lagaa soo galay anaa ii sheegtiinaan rabaa idinkana fikraddiina say tahay meel baa lagaa soo galaa haddii aan qalad adoon lahayn caruurtaada lagaa qaato looyaraa jira qabsanaysaa dowladda waa dacweynaysaa looyaraa jiro caruurtii barkii dadku casru jaahiliye ma joogno ya haddii caruurta lagaa qaato oo qalad lagaaga qaatay oon caddayn lagugu haynin haddii caddayn lagugu haayo choicekaaga way yar tahay waxaa qaban karto haddii caddayn lagugu haayo laakiin adoon caddayn lagugu haynin oo hawshaada iyo danahaa ka soo baxa haddii caruurtaa lagaa qaato looyaraa jira dowladda dadka ma weyna ma fahmayseen marka waxaa isweydiiya gabdhaha soomaaliyeed dumarka soomaaliyeedow ragga soomaaliyeedow waxaan rabaa inaa isweydiisaan daldalooladee leedinka soo galaa balwadee leedihiin balwad qofka markuu leeyahay vulnerable waa u jilicsan yahay in la soo galo hadduu qofka balwad leeyahay noocay rabtaba ha ahaatee khatar baad ku sugan tahay in caruurta laga qaato in caruurta gurigeeda lagu baashaalo ma aha in caruurta guriga ay joogto qiiq lagu buufiyo ma aha in wixii biyihii la cabi jiray la cabo maaha in waxaasoo dhan qalad waay caruur markaa leedahay waxaa ku saaran mas-uuliyad baa ku saaran caruurta qolal gooniya u samaysta isku soo xira markay caruurta seexato darashadaha iska fura awalba wax aan xalaal ahaynay ahayd waxaas balwadda qofkii balwad leh laakiin waxaan rabaa inaa i weydiisaan daldaloolada laydinka soo galo inaa ii sheegtaan rabaa waxaa barkay hooyaa ilma laga qaatay hooyaa ilmana wada baada ilmaha baahidood ma la qabay maxaa keenay in caruurta la qaato maxaa sababay walaalahay qaali u malayn maayo caruurta xitaa haddii ay u malayn maayo caruur inay been sheegayso ma u malaynayo caruur hooyadoodii aabahood si fiican usoo koriyeen ma u malaynayo inay been sheegayo jekalkooza waxbaa jira marka iska ilaaliya dumarka soomaaliyeed meelaha ragga soomaaliyeed meelaha daldaloolada layska soo galo meelaha caddaynta laga helaayo iska ilaaliya su-aashaasna inaa iga jawaabtaana rabaa sababta caruurta la qaato waxaad idinka ka aaminsan tihiin iyo waxay idinla tahay inaa iisoo jawaabtaana rabaa inaana ii sheegtaana rabaa balwaddu lugma ku leedahay caruurta layska qaato
kaasoo barnaamijkeena maanta balwadu lug ku leedahay caruurta la iska qaato I think it does lug weyn ay ku leedahay weliba walaalahay qaali aad baa idin salaamaya walaashin fiimo waaye qofka subscribe-ka ii saar xafidullah allahna xafida meel baan joogno باي باي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته